أهلا فيكم يا أحباب ملك تدون الدافيد كجكتن كسر هذا كنال كنا من بي أصحابتي القيمة بدنيد إن نكمل الكين وحير منا تير هذا عمانك كوكوس نايد فيلك وانتر كنت شرتي بالكسر هذا الله محو كراش كوها ما قرنا يا تاير إنما بدن بتشلا إنما ضرب بكراش سكجاها وحيرات سكير بس كدير بس كهاد لكن إنك واحد يقدم بيسي أنت شهور يقدم بيسي هذا شلي بس كده هيد ما أنت شهور نقطة واي قلين كي abid ugu badnaa bay samaysay mid waaligay samaysay mid kala duwan bay samaysay cheek fillers ha odhan lip filler ha odhan botox ha odhan facial enhancement ha odhan waxaanay samayn iyadoo gebigeedu 39 jir oon 40 kaba gaadhin weliba dhowr 20 jirkeedii bay samaynaysay iyadoo sidii hadda bacba ahayd u qurux badnayd oo taayar inay isku dhawaato maahayn aad bay u yar fresh bay ahayd ma garanayo wax inantii qaaday inantii waxaasay ku dambeysay inay sidaa noqoto maanta wejigeedu waa nooca meel may soo istaagi karto foolxumadii oo foolxumo dhaaftay weeye laakiin aan bal ka horeyna sababaha ay filimada u joojisay intaana dee waxaan yacni digirtan iyo shuuradan iyo masagadan aanay iska dhigin dee bala gabadhii afkiisuu noqda blandhiisay noqda camankisay noqdeen lamaba garanayo waba qof kaleba ayeesha horta filimkeedu ugu horeeyay waa filimkeen wada garanayno The Wonder Car waa Tarzan filimkii Ajay Devgan iyo kii yar ay ku wada jireen festival filimkaas way ku soo baxday filimada laakiin u guuleystay inaba caadiga ahayn wuxuu ahaa ama waxay ahaayeen sida Sojanata oo Abediyol ay kula jirtay sida Super sida Wanted oo ahaa dekeedii ugu weynaa abid waxaa lagu ammaanay filimka kale door oo abaalmarino ay ku qaadatay kala yaro duwan abaalmarino fara badan intan ma haysta abaalmarino naflana ma haysato filimkii Tarzan markay kusoo baxday unbaa adirshada markaas aflaanta ku cusub ee Filmfare Award la siiyey filimada kale lagu ammaano markaan ka imaado Super Sojanata iyo Wanted waxaa ka mid ah filimka door oo ay Screen Award isagana ku qaadatay xagga criticska kadib waxaa isugu xigay filmo badan oo flop ka noqday inanta waa sababaha ay u joojin doonto filimada ee ishqi bay la timi oo ay dee actoro badan ku wada jireen oo aad iyo disaster noqday Kaya Love bay ku jirtay No Smoking bay ku jirtay filmo badan bay kasoo muuqatay filmadii oo dhan flop Badshaala bay ku jirtay oo 2010 ahaa flop markay ka bixi weyday khalaas filmkii mod baa ugu dambeeyay yarkii u joojisay filmadii inantan markaa waxay guursatay nin la yiraahdo markay dee filmadii ka caal weyday 2010kii khalaas wixii oo dhan wada flop ka noqday khasaare mooyee inantii faa'iido ku dhufan weyday ay iska joojisay dee markaas wada kale uma banaana guur bay isku tuurtay ninkanay guursatay ninkana waxa la yiraahdaa Farxaan Asmi waa nin muslina marka waxa la yiri sida la xaqiijiyay iyada awal badiin may haysano familkoodu uu kala diin duwanaa laakiin markii ninkan guursatay toos ba islaamka u gashay saasa la sheegay inay toos islaamka u gashay inan yarba u haysaa marka 2012 guurstay 2013kiina inantani way ilmahaas u dhashay wiilkaas u dhashay marka wiilkaas soo hayaan oo iska fiican tahay ninkeedu marka waa nin businessman oo entrepreneur oo hadii la haydekeeda leeyahay restaurantyo fara badan oo kala duwan haysto oo shaqooyin aad u culus haya markaas waxa la yiri iyadu ninkeedu gacan siisaa yani oo iskala ganacsataa wax kale haysaa ma jirto dhinaca kale inanta filmadeeda adigu hadii aad filmadeeda dib xasuusatid filmadeeda filimkee ugu jeclayd aniga wallahi filimka ay ku soo baxday ayaan ugu jeclaa alaylehe filimkan ay ku wada jiraan magaciisi duhidu mayaheeda walahi siira macana ku jiray filimka shaahidka buray saddexda ahaayeen filimkaas isiyada iyo ina sabal khan walaashay saha ala khani filimkan waan ku jeclahay filmo badan ma lahayn filimkaas Sojanatana waan daawada filimska okay abuu ahaa laakiin Wanted ba holacaha iyo dabde Wanted ba holacaha laakiin filim xoogaa heesihii iyo dunyadii wuxuu isku dhameystireen waa Tarzan iyo Wanted ayaan u hayaa inantan filmada kale oo dhan yar baan ka daawaday waana iska wax Netflix asaas kaga ma sii jirto maana story xoog badan filmada dambe ma wala haba oo iska soo gashay saasay u falabaan sir uga noqdeen marka inantan ayaa shatakiya halkaas in ku deynayna anigoo ku xasuusinaya filmadeeda filimkee ugu jeclayd maxaas inantan aad uga heli jirtay
maxaad ku jeclayd inantan okay halkaasaan kaga teginaa haddaba waxaan soo qaadanaynaa gabadhii Raveena Tandon. Raveena horta waxay ahayd inan yacni shirkadda Bollywoodka ciraq iyo xidid ku leh waayo aabaheed wuxuu ahaa director waxaana la odhan jiray Raveena Tandon. filimkeeda ugu horeeyay waxa qatarkee buul waa filimka halka ka aragtaan ogow Salma Khan markaa wuxuu ahaa actor sal dhigtay actor weyn buu ahaa filimkii meena biyaarkii ayaa si weyn ugu qarxay hablaha dhan crash bay ku hayeen si kadisa markaa Raveena Tandon lagu yiri iyadoon xiisabo u ahan Bollywood inay actorad noqoto ayuun baa lagu yiri filimka oo xaysiyo wax iska sameeyay filimka meel matalisa Salma Khan oo ka soo yar fikiraya bay tiri Salma Khan markaa xidig hablaha dhan baa jeclaa dabadeedna saaxiibadeedu sheegtay oh my god naarad la matal markaa waxay tiri go'aan waxaan ku gaadhay filimkan kaliya matalo Salma Khan calaashan Salma Khan ka cajiibka aan la matalo kadibna aan filmadaba ka fadhiistay laakiin markii daba sheekada way la sii dhaaratay laakiin waxa xusid mudan in sadka markay joogeen sidii laba hablood oo yar oo dhuucila ay isku leeynayeen Salma Khan saas ay waliba ku ballan qaaday filim dambe inay wada keeni doonaan inkastoo antaas amtaas martaba wada keeneen filimkaas ay wada keeneen Filmfare Awardna way ku guuleystay laakiin filimkii ay ku saldhigatay oo la yiri gabadhan waa adrishad buuxda waa filimkii Dilwale kula jirtay hadii la haydan kada leeyahay Ajay Devgan in kala yiraahdo Sunil Shetty sidoo kale oo markaa filimkaas 1994 kii waxa filimka kale isla 1994 ka ahaa sanadka iyada iska lahayd wuxuu ahaa filimkii Mohra labada film baa mar soo wada baxay labada film markay mar soo wada baxeen waxa lagu cimaamaday ama loo aqoonsaday loo garowsaday inay tahay xidig weyn oo cusub ay labada film blockbuster u noqdeen caadi ma ahayn dabadna waxay ku dartay filimkii khilaadiyoon ka khilaadi ee 1997 ka ahaa reexay ay kula jirtay hadii la hayda kada leeyahay Nicolas Akshay Kumar haddana 1997 kii filim kale guuleystay la timi oo filimkii Zidi ay la timi afarta filim markii ay matashay haddana waxay ku xijisay laadla oo markaa shirdeef actorada koowaad iyo actorada labaad ba kaad laakiin waxay ku tartantay abaalmarinta yani support actorka inkastana ku guuleysay laakiin aad ba loogu amaanay doorkaasna runtii si fiican baa leeyahay uga soo baxday oo kale iska araga filimkan film weyn buu noqday markaa Dilwale Mohra khilaadiyoon ka khilaadi Zidi laala shanta film خلاص way sal dhigatay si fiican ba intan u sal dhigatay xidig weyn bay noqotay kadib waxay matashay adigu filmo kale oo iyana guuleystay oo iska comedy ahaa oo ninka Govinda ay wada keenay sida filimka Badamiya Chotamiyan ee markii dambe Tiger Shroff iyo Akshay Kumar ay qaybta labaad ka sameyn jireen inkastoo qaybta hore ay aad u guuleysatay filimka kale ay la keentay waxa Dulha Raja Anari number 1 caadi ma aha filmo badan heeso badan baan garanayaa oo inaba caadi hayno iska xaraabaha oo qosol ay wada jireen kadib inanta waxay ka soo muuqatay filmadii Gulaam ee Mustafa kii wallahi Mustafa ku jiray Nana Batakar iyo Shol filmadaasna way ka soo muuqatay macnaha waxay muujisay in adrishad awood badan ay tahay inay tahay haddana ka rogo laba saar bay tiri inanta ma fadhiisanay waxay matashay filmada Daman iyo Akas Daman oo ay ku heshay abaalmarinta weyn ee National Award iyo Akas ay ku heshay Filmfare Special Award inaba caadi ma Tandon markaas ama Miss Tandon way saldhigatay si aan caadi ahayn bay u saldhigatay abaalmarino fara badan oo kala duwan bay heshay sida taan sheegnay National Award laba Filmfare Award tay ku soo baxday iyo tan filimkan kale ee OTT-ga ay ka heshay sidoo kale bad mashaaridii muhiimka ahayd bay haysataa oo civil award ah dadaal saxaabo xagga TV-yada iyo web series-ka ay haysataa Netflix-ka sida filimka la yiraahdo taxanaha ah Aranayak 2021 inaba caadi ma ahayn aad baa lagu amaanay KGF chapter 2 2022 waa qaybta kale oo support actor-ka ah yani dhinac kasta way gashay koonfurtii musalsalaadkii reality show-yadii de wax kasta Netflix-kii bay ordaysaa gabadhaas yani horumar ka maqan ma jirto lacagteedna waa ilaa 20 ilaa 30 milyan baa lagu sheegay inanteeda markaa 4 caruur ay leedahay laba way korsatay mar dambe korsatay labada hore korsatay marka dambe inan iyo inan bay ninkeeda u dhashay ninkan Master Tandon la yiraahdo inantan iminka xidigta noqotay uu rajeynayna in xidig weyn noqoto laakiin way fiican tahay teer aad ba loo amaanay
in yar bay filmada matashay wax yar bay kaga jirtaa naf lahayn laakiin aad ba loo amaanay quruxdeedana inaba caad ma kaale iska arag waxba yar xaysisaa filmkii azaad bay kusoo baxday waa ina yaroo 20 jira laakiin haddana mustaqbal fiican bay leedahay marka lala barbar dhigo Ananya iyo Sara iyo dadkaas ama Nebo Kiddies marka lala barbar dhigo iyadoo waxaad moodaa in ay ka future fiicnaanayso haddii ay dadaasho way talentkii hooyadeeda oo dhan baa ku jira marka Rafiina Tandan filmadeeda adiga ku dhiibay maxaad ku jeclayd alla anoo Rafiina wallahi filmo badan baan jeclaa sida Dilwale filimkaas ajeedif kan isnu sheet kula jirta aad baan jeclaa filimka kale isnu sheet akshay marka kula jirta Mohra aad baan jeclaa inaba caad ma ahayn heesaheeda yani actingkeeda sidoo kale waxaan aad u jeclaa isoo qaba filimkan aad u jeclaa Rafiina horta filimkan Friday aan markaas soo sheekeeyna waa ka helay runtii marwada weyn tahay markaas Rafiina horta jilitaankeeda iyo heesaheeda runba wanaagsan aan heesaheeda jeclaa يعني waxay kamid ah adirshadaha wajigoodu macna markay sheekaynayaan ama filmka matalayaan aanu aad ugu socon laakiin markay hees timaado malayn maayo naag baa kaga daba dhifan kartaa hees ciyaartii bay ka dhisan tahay heesa fiican oo hid ana way kusoo beegmeen nasiib wanaageeda iminka adirshada aan wajigooda yani jiltaankooda sida isleeyihiin qaabka filmka u matalayaan aan jeclay ugu baxdo waxa kamid ah Kareena Kapoor Manisha Koraila Pretty Zinta intaasoo dhan ciyaar ma yaqaanaan ciyaar fiican ma yaqaanaan waa iska okay laakiin jiliinkooda ayaa ka daadegaya hada Kareena Rafiina dance way kaga fiican tahay walaashad Krishnana deemaba gaadhaba hada Krishna hadaba different ah Krishna Kapoor yani waa Krisma iyada dansigeeda top inna bacdo naagta manduuri digsi meel saartay iyadoo ta dansigeeda kaalis kaarag aad baan u jeclaa manduuri digsi marka la yimaado iyo Krishna Kapoor dansiga wallahi anu Krishna qaadan lahaa iyo barigaadii waqtigoodii Krishna taasoo qaadan lahaa waayo Krishna aad si fiican inna bacdaan ka helo buu ciyaar taqaana iyada waxay ku darsatay xataa iyada jiliinkeeda ku soconaya wajigeeda ma garamo indhaha bluuga alla markay xanaaqday markay carootay intuu say noqdaan iyo wajigeeda tacbiirta u bixinaya actionada iyo kaala iska argayada waa qof ma garanaysaa la wada qaadan karo inkastoo filmo waaweyn oo fiican oo aniga dooqayga inanta uu ku soo beegmin laakiin sida filmka Raja Hindustani oo kale tan soo qaato oo ku qiimeyn kara Krishna Kapoor inaba caad maaha marka laakiin hees haday timaado hees nafta lahayd gabadhana isku urursatay alla maxay heesta tib barsaad ka waran barada tuujiisi bari ka waran bal heesta goori maale ka waran ee gabadha kula jirto bar heesta sidii ku jirta filmka sidii ku jira heesa ku jira rakshak heesta sheerkii ladkii ku jirta ka waran ka waran heesta yar macaan sanjeedu la qaadayso filmkii Dilwale heesi macaana ka waran heestan ku jeclaysaa to janam me tere me sath rahunga ya filmka bilada ka waran heesti ku jiray ka waran heesta deedi caadi ma mid kale gabadhan waxay ahayd fir romantic bay ahayd inaba caadi ma ahayn sasa ku jeclaan waxyaabo badan baa ku jeclaa heesaheedan jeclaa inta top ahayd ila dooqa asxaabteeda qiimaha badneed Rafiina bal filmkaad ugu jeclayd heesaheeda kuwaad ugu jeclayd insha Allah comment xagga hoose nagula wadaag imsadna ku qiimeyn lahayd 10kiiba imsad siin lahayd qaab jilitaankeedana 10kiiba imsad siin lahayd heesaheedana anu 10kiiba 10 baan siin lahayd heesaha 10kiiba 10 ayaan siin lahayd laakiin adu intaad siin lahayd filmadeeda samooda daawatay ma jeceshaa ilaa imika ma la socotaa Rafiina walaa qof qaali baaruud baanan ilaawi karin raasi heesaa badan ee filmka baaruud waxay filmkaas oo kale inuu blockbuster noqdo waayo heesihiisa actionkiisa iyo iyaguba wada hidba film baan yaaba israada maxay falad uga dhigan bilayd waa nasiibkoo sida heesaa the fuse marka asxaabteeda qiimo badneed waxay noo soo qaaday intii filmo badan baa jira inoo ku jecelnahay sida Aatish iyo Baaruud filmada moogta waa iska filmo ama average ama flop filmada inag Soomaali ahaan inta badan aan jecelnahay wallahi wada yaabaysaa mararka qaar filmo ayna jecleen marka la yiraahdo flop waa yaaba marka am xaqooda waa kuwa ka guul dareystay laakiin muhiimadu waxa weeye inagu maxaynu jecelnahay iyo dadku maxay jecel dadka qaar filmada qaar baa heesuhu hid noqdaan oo aan la ilaawi karin sida filmka hata khushi oo kale Kareena Kapoor fartay filmo badan filmka afartan sano aftaabi filmo fiican hadana waa disaster bay noqdeen marka
iska nasiib laakiin agtaradu waa dadaaleen iska fiyuusuun marka laguma qiimeyn karo inaguna kuma qiimeyn karnaba absolutely dooqeynaynu ka hadlaynaa laakiin waxaan inoo soo qaaday filmada haddaad istiraadaan filmay ilowday maan ilaawinay inta muhiimka iyaga xagga marka dee aynu ka sheekeynayn waa in wixii xooga muhiima aan ka hadalno waxna waxaynu markaynu sheekeysano waxna waa wixii jira kaa filmada u guuleystay caanka ku yihiin ee u qarxay balaayada ku noqdeen ee ugu fiyuuska badan ee ugu daawashada badnaa ee ugu guulaa badnaa ee biladaa ku qaataan baa inta badan inoo soo qaadaa marka waa idinka haddii asxaabteeda qiimo badnayd intaas iminka barnaamijka inoogu soo ekaysiinaya dawad la socdaa ila socda please and please na kilibka ila shaqeeyo oo turkidiina waa inoo geli doonaa turkidii dad baa isoo weydiinay cishqi mamnuuc iyo weliba agtaradii ku jiray baan kaga soo bilaabi doonaa filinkaasaan si fiican u daawaday iyo weliba filmo badan musalsalaad fara badan berigii dambe ma daawado musalsalaadka laakiin musalsalaadka idinku isoo weydiiyay insha allah inta aan ogahay iyo inta aan dadka agtarada kale waan aqaanaa intooda badan weliba xiliyadan daawan jira marka waan idinka soo sheekeynaya idinkuna xagga hoose ama commentiga igu soo qora insha allah dalabaadkiina aadna waad mahadsantihiin wixii abdheydana dee social media xitaa ka socda oo dee shaqadeena igu soo mishan karaya igu soo taagaraya dawladna soo thank you so much